الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مدن قدومي مدن يال دمان إيغا قدوم سلام ديران إيغا قدرين غارة مدن قدومي أنو أهوغانسان waqtiyada la soo qabtay hase yeeshee waxaan jeclaan lahaa aragto oo yara farsamo iyo mid siyaasadeed iyo mid oo sixid ah intaba waan leeyahay kama bixi doona labada qodob oo labada cutub kaliya oo laga doodayo waxaan si codsan lahaa haddii iyadoo aan ka fasax qaadanayo jaalayaashayda ee xildhibaanada ah in aan 5 daqiiqo aadan igu koobin oo xoogaa yar aad wax u martaa deeqsi inaad noqoto waxay ku dhisan jeclaan lahaa waa hadday raalli ka noqdaan mahadsanidin mudane guddoomiye sharciga hor yaalla tan iyo markii oo 2000 iyo markii ay dawladdii 60kii ilaa 69kii jamhuuriyaddii koowaad la afgembiyey ka bacdina midii oo xigtay jamhuuriyaddii labaad oo kacaanka ahaydna iyadana ay xilgabtay ilaa 2004 ilaa maanta waxaan ku jirnaa sideebaa loo dhisayaa jamhuuriyaddan saddexaad ee cusub la dhisay aan weli ku jirnaa weli waxaan ku jirnaa jamhuuriyad dhisay kamana aanan bixin haddaba markii oo la dhisayo dawlad waxa ugu horeeya oo ugu muhiimsan dokumentiga ugu horeeya oo ugu muhiimsan waxa weeyaan dastuurka marka la sameeyo dokumentiga labaad oo ahmiyada gaar kale oo la sameeyo waa xeer hoosaadka oo golaha shacabka ama golaha baarlamaanka federaalka dokumentiga saddexaad ee xiga waxa weeyaan kan jinsiyadda waayo mar haddii aad gobonimadii samayso qofkii iska lahaa shacbiga ahaa in la sameeyo waa shacbi waa magac guud laakiin mufradkiisa waa muwaadiniinta la isku daro ayaa shacbi noqonaya marka kan jinsiyadda waxa weeyaan ahmiyadda xigtaas weeyaan ahmiyadda kale xigta waxa weeyaan kan doorashooyinka waxa loo keenay waxa weeye marka heybta jamhuuriyadda mas'ala aad eegto dastuurkeena aad ka eegto heybteeda waxa ka mid ah waa dimuqraadi waa federaali waa ilaa akhiri waxa ku xiga oo dhahaya oo qodobka koowaad oo faqradiisa koowaad oo dhahaya waxa ay ku dhis jamhuuriyadda waxay ku dhisan tahay matalaada shacbiga oo loo dhan yahay marka matalaada waxa weeyaan sharcigan ayuu ku saabsan yahay marka waa muhiim sharcigan hor yaallo in marta si oo qoto dheer inaan uga doodno aan u fiirino waxa dokumentaalka xigay sharciyada xigay waxa ka mid ah markaas ka bacdi kan axsaabta barbar soconaya waxa ku sii xigay nidaamka xukuumadda ama government ordinance ay yiraahdaan ilaa aakhiri marka garsoorka la sii galay ilaa aakhiri marka haddii aan sharcigan aan u fiirino si aan ugu soo xirno dastuurka aan ugu soo xirno waxaan marka u horeysa aan fiirin karnaa qaybta dhismaha gobonimada uu subina qodobka koowaad faqradiisa koowaad dhismaha jamhuuriyadda ama heybta waxay ku sheegan tahay in uu ku dhisan yahay matalaada shacbiga oo loo dhan yahay iyo nidaamka axsaabta siyaasadeed ee badan halkan wuxuu hor iyo horaanba hoosta ka xariiqay matalaada shacbiga loo dhan yahay taasi waa magaciisa wuxuu tilmaamayaa sharcigan ay ku soo xirmayaa markii aad fiiriso qaybtiisa labaadna wuxuu leeyahay dastuurka oo wuxuu xaqiijinayaa in Allah subhanahu wa ta'ala ka sokow dhammaan awoodaha gobonimada lagu sheegayo ma aha qabiil aan u dhashay kaas ma waxa weeye awoodaha gobonimada la yiraahdo waa tan waxa meesha aan goobta aan fadhino waxay ka mid tahay awoodda sharci dejinta awoodda fulinta iyo awoodda garsoorka ama gobonimada saddexaas ay ka koobantaa marka wuxuu leeyahay awoodda gobonimada oo dhan waxa iska leh shacbiga leh wuxuuna awoodiisa u adeegsanayaa hadda si toos ah ama ay asagoo adeegsanayo hay'adihiisu si toos ah markuu codeynayo oo ku ridayo muwaadin kasta oo ku ridayo waa adeegsiga tooska ah marka uu sida dadban u isticmaalayo waa markii annaka golaheena uu ku sameynayo korjoogteynta xukuumadda uu ku sameynayo iyo shuruucda uu dejinayo ayaa ay tahay marka haddaan ka sii soconno haddana qodobka 22 marka aan eegno dastuurka aan ka eegno wuxuu xeerinayaa muwaadin kasta xaq ayuu u leeyahay inuu ka qayb galo arrimaha dawladda xuquuqdaas oo ay ka mid yihiin muwaadiniinta inay samaysan karaan axsaab siyaasadeed kana qayb gali karaan kana howl qaban karaan xisbiga gudihiisa
waxaa kaloo sii leeyahay in xisbiga dhexdiisa uu ka qaban karo xilkii loo dhiibto active uu ka noqon karayo ayaa iyadana uu noo sheegaya haddaan ka gudubno waxaan dhegeysaa haddana qodobka 46 ee dastuurka qaybtiisa koowaad wuxuu leeyahay dastuurku wuxuu hadiiba si cadeynaya oo qeexaya awoodda xukunka la isugu talinayo waxay ka bilaabantaa kuna dhamaataa shacabka waxa la wixii marka yani awoodii sidii hore u soo sheegay laakiin haddana wuxuu ku leeyahay wixii la isku qabto asaga la weydiina waa marka referendumyada la sameynayo ay kamid tahay oo kamid ah doorashooyin 46 faqradiisa labaad nidaamka matalaadda waa in uu ahaadaa tan loo fiirsado waa inuu ahaadaa mid furan oo qof walba fursad u siinaya inuu ka qayb galo howlaha dawladda uu sii wadaya wuxuu habraacyada qodobada nidaamka matalaadana waa inay ahaadaan kuwa fudud oo si sahlan loo fahmi karo faqradii saddexaad ee 143 wuxuu leeyahay nidaamka matalaadda waa inuu ahaadaa mid lagu qanci karo oo la garwaaqsan karo inuu yahay mid ka hortagaya loogana gaashaamanaya qalabaasaha ama khilaafaadka ka soo dhalan kara tartamada siyaasadeed iyo natiijooyinka doorashada taana waxa weeyaan wili wuxuu ku sii degayaa wuxuu daba joogaa sharcigan laga doonayo inuu maragta xeeriyo nidaamka doorashooyinka iyo axsaabta siyaasadeed wuxuu ku sheegayaa qodobka 47 ee dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya awood u siinaya inuu ka soo saaro shuruuc gaar ah oo xeerinaya kow axsaabta siyaasadeed iyo diiwaangelintooda labo sharciga doorashooyinka oo heer federaali ah saddex sharciga lagu dhisay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka mahad Allah leh kuwaas oo dhan waa wada sameynay oo xilkii waa ka gudanay baarlamaankii 9 bay ku dhamaatay hadda se waxaan u horyaalaa waa sharcigan oo asagan dastuuriyan laga sugayo waajibna ay tahay inaan darisno oo aan marta aan dhamaystirno haddii marba ilaahay gacantooda ka soo bixi xukuumadda inala taalo in marta si fiican looga baaran doono qodobka 64 ee dastuurka wuxuu xeerinayaa in shacbigu si toos ah qarsoodi ah oo codeyn madax bannaan ah ku dooranayo wakiilada ku matalaya golaha shacabka sidoo kale qodobka 72 ee dastuurka wuxuu xeerinayaa in shacabka dowlad kasta goboleed uu si toos ah oo qarsoodi ah codeyn madax bannaan ku dooranayo wakiilada dowlad goboleedyada ku matalaysa aqalka sare marka taana waxa weeyaan doorasho toos ah oo haddana sharciga saameynaya marka u soo noqdo nooca doorashada marka haddii inta qodob aan soo barno waa maxay nooca doorashada oo dastuurkeena tilmaamay waa noocee ilaa noocyo badan baa jireen haddaba markii aan isu geyno micnaha iyo ujeedooyinka qodobada kor ku xusan nooca doorashada oo dastuurkeenu tilmaamay waa nidaam doorasho sugaya hirgelinta adeegsiga doorashooyinka uu leeyahay muwaadin kasta oo buuxiyey shuruudaha sharciga inuu si toos ah qarsoodi ah caadil ah oo siman qofkii bahal cod ah oo codeyn xor ah uga qayb qaato codeynta iyo doorashooyinka waa nidaamka loo yaqaano nidaamkaas haddii oo la sugeeyey wuxuu noqonayaa nidaamka sugidda hirgelinta xaqa codeynta iyo doorashooyinka muwaadinku leeyahay oo afka carbeed ku noqonayo تطبيق حق المواطن للتصويت والانتخابات afka qalaad oo ingiriisigana ay ku sheegaan universal suffrage marka erigan la yiraahdo one man one vote oo waa halqabsi waa slogan oo shardi kamid ah shuruudaha ee ma aha nidaamka laftirkiisa ma aha marka one man one vote waa la soo fududeeyay waxaan loogu talagalay in dadka intiisa caamada ah ay ku fahmaan universal suffrage marka sidaa daraadeed haddii one man one vote kaligeed aad tiraahdo waxaad ka tagtay xaqii oo in la xeeriyo xaqii ayaa aad ka tagtay laakiin one man one vote waa la dhihi karaa hase yeeshee waa sugidda wixii dastuurka u damaana qaaday in sharcigan lagu hirgeliyo ayaa ujeedada ay tahay marka waa nidaamka noocaas way kanaan dooranay haddaba dejinta heshiiska sharciga doorashada waxa ugu muhiimsan hor iyo horaan in si cad loo qeexo cutubka koowaad ee koobaya mabaadi'da guud iyo loo marayo iyo habraacyada loo marayo
habraayada nidaamkaas loo marayo ayay ku fiican tahay. haddaba sida aan kor ku soo sheegnay qodobka 46 qodobkiisa faqradiisa saddexaad wuxuu xeeriyey in habraacyadu iyo qodobada nidaamka matalaadda ay ahaadaan kuwa fudud oo si sahlan loo fahmi karo. hindisaha ina horyaala mudana gudoomiye inkastoo ay ku dhan yihiin mabaadi'dii nidaamyadii habraacyadii haddana sida ay martaa ay u rasaysan yihiin cutubyada iyo taxaalka iyo taxanaashada qodobada looga baahan yahay si waahay looma fahmi karo. iska dhaaf ninka muwaadinka caadiga ee qofka siyaasiga dhib ku tahay in maragtaa uu isku soo xiro in misaba qodobada si ay isu taxmayaan iyo cutubyada si ay isu xirmi lahaayeen. guddiga runtii waxaan filayaa guddigeena oo xildhibaanada nooga soo shaqeeyay in arrintaas ay fahmeen waxaan se moodayaa inay yaro ka xishoodeen in haddii ay soo raraan oo qodobada ay soo raraan inaad u aragtaan wax cusub ay la yimaadeen. wax cusub ma laakiin waxay u baahan tahay si loo fahmo muwaadinkan uu fahmo siyaasiga uu fahmo axsaab siyaasiga ay u fahmaan in rasayntaasi iyo taxaalka qodobada laysu soo raro ayaan soo jeedinayaa. taana waxaa lagu sameeyaa marka intaan la gelinba sharciga waxaa la sameeyaa lafalafihiisa waxa aad tidhaahdaan maxaa la dhahay lafalafaha oo sida isu raxaya qalfoof ma lafalafa waaye qalfoof wax ibr ah waaye skeleton afka ingiriisi skeleton u noqona skeleton waa lafalafaha sida oo iskoolkan lagu soo baray. haddaad fiiriso masalan haddii aan rabno inaan isu soo ururino mudana gudoomiye iga raalaaha haddaan dheeraado haddaan isu soo rarno waxaa masalan qodobka koowaad waxaan rabnaa inuu noqdo magaca ujeedada iyo baaxadda sharciga kulli waa ku jiraan laakiin kulligaad waxaa qodobka koowaad qodobka afraad qodobka shanaad oo cutub koowaad ah kulligooda waxay isku noqon karaan hal qodob ayaa la isugu keeni karaa. tusaale ahaana waan soo jeedin doonaa. qodobka xigsanaya oo labaad inuu noqdo laga rabo waxaa waaye muddada xilhaynta hadda hor yaalla waxa uu ku yaalaa qodobka 14aad oo cutubka labaad uu jiraa meeshii laga rabay inuu qodobka labaad uu noqdo cutubka koowaad. tirada xildhibaanada la dooranayo labada aqal ee baarlamaanka federaalka cutubka labaad uu jiraa meeshii laga rabay inuu noqdo qodobka saddexaad. shuruudaha codbixiyayaasha cutubka saddexaad uu jiraa oo cutubka saddexaad 16 ayuu tagay. shuruudaha musharixiinta oo la rabay inay noqdo qodobka shanaad uu yimaado 26aad buu jiraa oo cutubka afraad baa la geeyay. muwaadiniinta sharci ahaan ka reeban codbixinta waxay jirtaa cutubka saddexaad uu jiraa meeshii laga rabay inuu noqdo qodobka 6aad. mideynta doorashooyinka mudeynta doorashooyinka qodobka 14aad uu jiraa meeshii oo laga rabay inuu noqdo qodobka 7aad. dalka oo loo kala qaybiyo deegaan doorashooyin ma cadda hase yeeshee waxay geeyeen qodobka 11aad ay geeyeen meeshii laga rabay inuu noqdo qodobka 8aad. sidoo kale qodobka 9aad marka la yimaado waa inuu caddeeyaa marka waa maxay nidaamka doorashooyinka aanu dooranay oo dastuurka na faray si waafaqsan loogu sameeyo. taa ayagana waxay geeyeen cutubka 2aad meeshii laga rabay inuu noqdo cutubka 1aad. ka bacdi waxaa raacaya cutubyadan oo kaalmeynaya habraacyadii qaladkii maamulkii bacdi oo dunuub la galo ilaa aakhirihi ayaa imaanaya ilaa oo hoos laga gaaro. masalan tusaale ahaan haddaad soo qaato markii qodobka koowaad tusaale ahaan u soo qaatay keliya ma wada akhrinayo laakiin 1 iyo 4 iyo 5 hal qodob aan ka dhigaynaa baan sidee uu soo baxaya haddii sidaas aan u sameeyo annagoo ixtiraamayno fiirana u yeelanayno dastuurka. masalan qodobka koowaad magaca ujeedada iyo baaxadda sharciga faqradda koowaad si loo sugo hirgelinta adeegsiga xaqa siyaasadeed ee muwaadinku leeyahay iyo matalaadda shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed kadib markuu arkay soo jeedintii golaha wasiirada federaalka lambarkeedu yahay intaas ee 2019 wuxuu ansixiyey sharcigan oo loogu magac daray sharciga doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka si waafaqsan qodobka 1aad iyo qodobka 22aad iyo qodobka 46aad ee dastuurka federaalka Soomaaliya. geyiga dowladda federaalka oo dhan waxaana lagu soo saaray
si waafaqsan qodobka 47 ee dastuurka federaalka qodobka koowaad meeshaan ku xireynaa masalan waxa markaa wuxuu kulmiyay qodobkii meesha cadday ku tahay 1 iyo 4 iyo 5 hal ay isku noqonaya faqradda labaad waa muhiimtan markaa inaan soo qaadno qodobka labaad waxa aad ku sheegan yahay qodobka 14 ee cutubka labaad uu ku sheegay laakiin annaga waxaan soo jeedinaynaa inuu noqdo qodobka labaad faqradda koowaad si waafaqsan qodobka 6aad ee faqradiisa koowaad ee dastuurka federaalka muddada xilhaynta madal kasta oo laanta sharci dejinta federaalka la dooranayo waa 4 sano oo ka bilaabata taariikhda si rasmi ah loogu dhawaaqay natiijada doorashada waxayna ku eg tahay halka ofiisada waxayna ku eg tahay markii la dhiso baarlamaanka xiga ee bedeli lahaa baarlamaanka markaas fadhiya si waafaqsan sharciga 20 sharciga lambarkiisu yahay 20 ee 27 Juun 2016 kuna saabsan wax ka bedelkii dastuurka qodobkiisa 6aad lagu kordhiyay faqrad 3aad wadana hadda xasuusantihiin baarlamaanka 9aad qodobkan oo 6aad wuxuu ku kordhiyay faqrad maadaama siyaasaddeena ay xasilooneen oo isbedel u jirayo in baarlamaanka kani uu fadhinayo ilaa baarlamaan kale yimaado haddii doorasho dhici weyso uu joogayaa يعني waxa weeyaan extension maaha waxa uu diidayaa firaaq inuu jamhuuriyadda baarlamaani uu dhaco firaaq haduu dhaco wareer dhacay marka micnaheedu waxa weeyaan doorasho ma dhicin baarlamaanka uu fadhinaa baarlamaankii 9aad masalan xilhayntiisu waxay ku egeed agoosto 2016 laakiin wuxuu sii kordhay oo ay duruufaha geliyeen ilaa 4 waxa la dhaariyay 27 December micnaheedu waxa weeyaan baarlamaankan tobnaad madashiisu waxay ku eg tahay December 2020 haddii doorasho dhici weyso baarlamaanku waa sii jiraya waa sii soconaya uu joogayaa muddo kororsi maaha laakiin waxa weeye wuxuu diidaa faraaq haddii hal sano ay gasho sanado waa joogaa haddii laba gasho labadu wuu joogaya taasna waxaad ku arki doontaan sharciga oo markaasi golihii shacbiga uu ansixiyay golaha shacbiga ee baarlamaanka 9aadna wuxuu ahaa labada xilba isaga isku hayay aqalka oo labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka saraasa isku haysa hadda meeshii golaha shacabka aad ku akhrisan sharcigaas micnihiisu waa baarlamaanka federaalka faqradda labaad labada aqal ee baarlamaanka federaalka haddii doorashadooda si wada jir ah loo qabto natiijada doorashadana isku taariikh lagu soo dhawaaqo waxaa kulankooda ugu horeeya la qabanayaa 30 maalmood gudahood oo ka bilaabata maalinta natiijada lagu dhawaaqay aan ka ahayn haddii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed arrin degdeg ah oo markaa jirta awgeed ay la haboonaato inuu isugu yeero in muddada korkuusan ka hor la qabto macnaheedu waxa way 30 maalmood gudahood ka hor ayuu u yeeran karaa haddii arrin degdeg ay jirto faqradda 3aad haddii ay doorashada la qabto taariikh kala duwan oo natiijada lagu kala dhawaaqo taariikho kala duwan aqal walba waxa kulankiisa ugu horeeyay la qabanayaa 30 maalmood gudahood ka bilaabato maalintii mid walba natiijada doorashadiisa lagu dhawaaqay aan ka ahayn haddii madaxweynaha uu muddadaas warsto intaas waxa tusaale ahaan labadaas qodob aan soo qaaday laakiin ilaa 5 cutub waan qornay iyagoo sida u tartiibsan haddana magaciisa waxaan rajaynayaa inaan guddiga u gudbino haddii aan yiraahdo mudan gudoomiye lafaha hadda aan ka magaciisa lafaha oo amarta oo aan ka hadlayay waxa naqal baan ahay xogeynta u gudbin doonaa haddii ay la haboonaato inuu guddiga ka naqaystaan sida ay u sameysnayso waxa way sida la isku kala raray la soo raray la isku keenay si taxalka rasaynta cutubyada iyo taxalka qodobada ay u cadaato markii aan fiirino qodobka 11aad faqradiisa labaad mudana gudoomiye nidaamka doorashada dastuurkeenu tilmaamay wuxuu ku hirgeli karaa dalkeena oo dhan markii loo qaybiyo deegaan doorasho kastana loo cayimo tirada kuraasta ay qoonta ahaan u leedahay dawladda oo gudata waajibkeeda oo ah in dhammaan muwaadiniinta buuxiyay shuruudaha ay u sugto amnigii iyo rugihii lagu codeynayay iyo haddii la fuuro yahay waxyaabihii oo loo baahnaa marka meesha xaq iyo waajib baa jira
حق مواطن وحوي شيء حقي عدينتي إن أرتاعه سمدح بنان وعديه واجب وحيكون هاي إنه عديه لكن واجب كسارن حكومة دا كعلوس كان مواطن كمواطن وحصرته ذكرته أنا جو مواطن أنا عدين إن أنا عدين فرض الكفاية عملون وناس حديث كبدن كيس عدين وحصرته أنا عدين لكن حق أن لا يهي وحيتهي إن ميل أن يدو أو مرتا رجيه لو عدين اللي كانوا أمني اللي يسوق إن مرتا سفر أن عدين كر إلى آخره واجبات كسوال المرمان حديث تسالة أو سوق هذا إنه نظام يدي هراء مثلا هذا كسوق هذا لحدني كودي كل سجال بقول لحدني كود وأمرك أي ترى حد يقصى معلين نقول شيء يجري 3.5 مليون وح لا سمينا أي دورة شدي وجوه الرئيس أولا دقي إيش ريفرندوم كأو دستور وح مرك الدلك أو كقابنا صدّن إلّه دقان دورة شو صدّن إلّه دقمو بالملأ إم سفرقات با دقي جمهورية دان أولا لسميه لابد دقمو أو يرى oo tiri yara waxa ay berbera iyo laascaanood berbera waxa la dhigay 118 goobood oo lagu codeeyo laascaanood waxa la dhigay 117 waxa yara tuulooyinkooda ma baxsaneen kasta waa urursan laakiin markii jubbooyinkii meelaha aad timaado degmadiiba 140 160 intaasan dhigay adi wadar ahaan waxay noqotay 5227 rugood ayaa la dhigay rug walbana waxa looga baahan yahay 4 qof ugu yaraan inay joogaan gudoomiye 2 hubiye ah iyo hal xogeeye marka 5400 ku dhufo 20 hadda maanta ma suurtagelayso laakiin inta dadaal waa laga maarmaa yani waajibaadka saaran waa culayskiisa xukuumadda ayaan u sheegay ama cidii diyaarinayso guddiga madax banaan ee haday noqoto marka qodobka 43 ee dastuurkeena wuxuu farayaa in nidaamka matalaadda inuu ahaado mid furan oo qof walba fursad u siinaya inuu ka qayb qaato haddaba fiisa inuu ahaado mid furan mid walba yani qof walba micnaheedu shacbiga oo dhan waaye intii uu buuxisay shuruudaha ay ka qayb galayo inkastoo guddigu uu si fiican u soo fiiriyay u soo shaqeeyay oo uu hadda ka wanaagsan yahay sidii hore oo xukuumadda ay disaan ku soo gudbisay haddana qodobka 11 ee nidaamka doorashooyinka yani hadda hor yaalla guddiga caloosh uu ka furfuray oo yiri kursi walba waxa toosa loo dooranayo waa hagaag waa talaabo horumar ah waay laakiin liiskii wili kor uu ka xiran yahay waa 275 marka taa ma habboon tahay mise waxa ka habboon in martaa si kale oo axsaabtan ay ka bixi karaan oo in suurtagali karto loo sameeyo saadaradeed anuu shakhsiyan xildhibaan ahaan waxay la tahay waan soo jeedinayaa in liiska meel baan u gaarnay iyo waxa fiican Soomaaliya mar baan gaarnay guusha aan gaarnayso naga xumaan aan haysano laga maarmaan 2016 markii hore waxna waa isku jacbursanayeen xamar laga sameeyay carta lagu sameeyay ilaa aakhiri laakiin 16 waxa la gaaray in la degaamiyo la goboleeyo aan iraahdo gobolada la gaarsiiyay hadda Puntland way taqaanaa inta kuraas ay leedahay South West way taqaanaa inta kuraas meesha agteeda jirta ilaa aakhiri marka in haddii taas aan gaarnay aan laga yani ciriir la sii gelin oo colaad dambana ay nagu sameeyeen oo qalaaska isanu kicin waxa la qaatay iyadoo sidaas ay tahay inaan ka sii horumarino aan iraano yani guddiga madax banaan iyo in laga dhigo heer goboleedka ay joogtay in guddiga madax banaan iyo dowlad goboleedyada ay wada tashadaan inta kuraas oo ay degmooyin u diri karaan inay u diraan meeshii hadda mesela South West aan ka soo qaado meeshii baydhabo kaliya ay ahayd maanta waxay geyn kartaa baydhabo ay geyn kartaa xudur ay geyn kartaa bardaal ay geyn kartaa burka ay geyn kartaa baraw ay geyn kartaa afgo ay geyn kartaa inta kale ay la sameyn karaan baydhabo ay ku xeyn kartaa sidoo kale Puntland in badan bay geyn kartaa garoowe gaalka ayo mushaarife ila aakhiri boosaaso qardo waa la geyn karaa marka inaan ka hor yani aan si tadriij ah dalkan aan u wado tabarteena inaan ogaano sida oo martaan shariicadii sunnada aan ku soo baranayna dhahayso rahimallahu rajulan arafa qadra nafsi yani ilaahay naxariisiisa u sugnaanaysa qofkii ogaada heerka kartida tabarta iyo
taagta iyo tabarta iyo kartidiisa ay gaarsiisata ay garta marka inaanu garanno si tadriiji ah dalka aan u wadno annagoo tixgelinayna wacyiga ummaddeena meeshuu gaarsiin yahay marka taa waxaa ila tahay maaragtay taa waxay keenaysaa xisbiga masalan oo ku tartamaya afarta kursi ee la geeyey xudur afartaas kursi u tartama kan u tartama meesha 275 u tartamayna leex ogeer hanalookaad shacbiga intuu kasoo kobcayo yani wacyigiisa kasoo kacay aan u turno shacbiga axsaabta siyaasiga oo kale haddii aan wax ka nidhaahno oo ayagana ay ku xiran tahay arrintan ay ku xiran tahay su'aalaad badan baan isweydiiyey oo shakhsiyan ah runtaa fiican in la sameeyo anigu waa diidanahay waxaan ma diidani waxaan ka mid ahay dadkii u horseeday in axsaab siyaasadeed sharcigiisa uu ka dhiirgalo dalkan ayaan ka mid ahaa weliba markii ay xukuumaddii waagaas jirtay ay ka gaabisay waxaan u bixinay xildhibaano gaar ah 22 xildhibaan baan u bixinay private initiative aan ku qaadanay ma aha xukuumadda ma keen baarlamaanka ayaa kaxeeyey oo dawladdu xukuumaddu waxaan u weydiinay war ra'yigeena ku soo darsadaan saasay ku socotay ku socdeen dhammaan waxaan u jeedaan guddiyadan samaysan oo madax bannaan iyo kulligood xasaasan ku wadnay oo baarlamaanka sagaal uu ku soo saaray igama aha marka ka hor imaad ma waxaan rabaa inaan loo naxariiso axsaab siyaasadeed loo naxariiso waxaan uga jeedaa liiskaas oo la furo hadda xiran in laga dhigo 6 liis oo kale oo 6 liis oo gobolada loo diro kabacdina la degmeeyo iyo gobolka banaadir lagu daro taas waa mid waa naxariis lagu naxariisanayo axsaab siyaasi waa naxariis aan ugu naxariisanayno shacbigeena waa arrin yaraynaysa waxyaabo dhibaatooyin caloosma oo cusub ay naga reebaysaayo hadda meeshaan gaarsiisanayo tan kale waxaa markii hore oo xukuumadda ay soo jeedisay waxa la yidhahdo threshold ama shardiga ah magaciisii haddaadan 19 xildhibaan helin ka kaca tahay guddiga waa soo dadaalina waxay keeneen 4% 4% waa 13 xildhibaan 13 xildhibaan wax yar ma aha sideedana waxaad ogaataan caalamka dhan u fiirsada threshold haddaa aragto shuruudahaasi waxay ka hiilisaa axsaabta yaryar waxay u hiilisaa axsaabta waaweyn siiba xisbiga markaa xaakimka ah Soomaaliya waa jirtay ereygaas in mar la keenay waxaana keentay Israa'iil markaa xaakimka haystay waxay yiraahdeen marka ayaga waa naga fiicnaayeen xogaa waxay xisbigii keeni waaya hal kursi xisbiga ma baaba'ay waa jiraya ilaa ninka mikrofon xagga biyo ha hayso haburaan baro shacbiga ma la afjikay xisbigiisa ha wato laakiin wuxuu xisbigii marka la qaybinayo xaasilka ama quotient yiraahdaan quotientaha la qaybinayo xisbigii quotientaha koowaad hal kursi ku keeni waaya qaybtu waa ka haraya laakiin hadduu hal kursi keeno qaybta kale uu ku sii jiraya marka quotientaha la sameeynayo markaasi ma aha quotient national oo yani dalka oo dhan ma aha deegaan doorashadaasi imise qofooda codaysay imise kursiga taala loo qaybinaya halkii kursi saasoo ku imaanaya markaas waxaan leeyahay loo naxariiso axsaab siyaasiga jiritaankooda afartan aan laga dhaafo almeen hal kursi hal dhaho ama tika la iska badaayo ayaan qabaa marka thresholdiga wuxuu keenayaa ha ka cararina ha dhibsanina tira badnaanta axsaab siyaasadeed anuu shakhsiyan waxaan ahay xirti marata oo wax kasoo xigatay Allah yarxamu aadan cabdulla cusmaan oo markaa madaxweyne ahaa mar walba oo nagula dardaarmay ha loo heeliyo axsaabta yaryar ha la dhowro ha la daryeelo axsaabta yaryar ayuuna oran jiray axsaabta yar waxaa waaye haddii kalluumaysata ay samaysato haddii beeraley ay samaysato haddii fardoole ay samaysato khali la xaalo waxbay kusoo kordhinayaan ra'yi bay keenayaan oo la yaraysan maayo taana meeshaas aan uga baxo arrimaha kale waa cutubada kale ila gelayaan madaan gudoomiye anigu waxaan leeyahay arrinta oo kow aan soo jeedinayo oo aan adkaynayo waxay tahay lafaha iyo rasayska cutubyada ha loo fasaxo guddigeena ka shaqeyno hayo inay soo raraan ha u arkin inay cusub tahay waa la soo raraa waa la sugeynaa si marta mafhuumku uu sameeyo arrintaas waa arrin muhiim ah oo aan xildhibaanada ku adkaynayo inaan u fasaxno guddigeena inuu arrintaasi farsamo ahaan oo isu raro si muwaadinka Soomaaliyeed wax u fahmo
axsaabta siyaasiyadeed oo daneynaysa ay u fahamto siyaasiyiintana waxay u fahmaan meesha ay u sameeyeen taasuu fududaynaya wuxuu kaloo fududaynayaa haddii nidaamkaasi lasoo qaato mudane guddoomiye mustaqbalka haddii aanu doonno in sharcigan marka uu nagu gudbaayo insha allah oo sidaad aan soo jeeday uu nagu gudbo waxaa fududaanaya in hadhowdii aan ku dari karno doorashada degmooyinka maxaa la dhahay munishiibiyaalka waxaa la dhahay golayaasha maamulka ee degmooyinka waxaan ku dari karnaa doorashada nidaamka doorashada ee baarlamaanada goboleed waxaanu ku dari karnaa doorashooyinka madaxweynayaasha goboleed marka wuxuu isu bedeli karaa sharcigaani sharci la yidhaahdo doorashooyinka siyaasiga ayuu isu bedeli karaa waxaa waye faqrado unbaa lagu daraya faqrad unbaad faqrad ku korinaysaa wuxuu toosiyaa magiisa saas daraaddeed markaa wuxuu noqonayaa walaalayaalow haddaad maanta u hiilisaan sharcigan Soomaaliya aad u hiiliseen haddii maaragtaa oo aan wuxuuna noqonayaa dhaxal reebkii labaad oo baarlamaankan uu u sameeyey dalka Soomaaliyeed aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan ku dadaalayaa hadda ka bacdi inaan waqti badan aan ka qaadin wixii aniga aan qabo ilaa shan cutub baa iga diyaar ah waxaan u gudbin doonaa guddiga si ay uga naqaystaan malihi ha ogolaadaan ha ka naqaystaan wixii oga anfacay ha kala baxaan wixii kan ha ka joogaan insha Allah. Assalaamu calaykum.